دمان إن شاء الله تعالى وحي ولا لا مسلمين بيدا كنول دافع ذاك الدبن ساكذا وحنا يسوقون نمد والصباح نمو 4 يعني قرية محدين جبريل أبو محدين وحا كحنوسن حاسي ساعدي محمد آدم يا كحنوسن ومدل لبس سنة يا حنوسن تاهي كل أوقات runtii markii hore waxay la tahay si aan dhibaataysnayd yani nabaro kaga soo baxay lugta iyadoo sokorteeduna ay tahay mid aad iyo aad u sareyso hayeeshee laakiin hadda waxaa soo ziyaaday oo soo kordhay in laga helay buro kansar ah oo kaga soo baxday maxaa la yiraahdaa raximka ama ilmo galeenka marka duruufta keena maanta waxay tahay inaan isu fariisano gabadhaas walaasheena ah ee muslimada ah in arimaheeda insha Allah ta'ala wixii laga qaban karo in laga qabto oo soo taakuleeyo garbaheygana waxaa fadhiyo wiilkeeda iyo culimada diinka la duwan Sheekh Maxamed Yuusuf Boqorjirow Sheekh Cabdiraxmaan Abikar ayaa garbaheyga fadhiyo insha Allah ta'ala haddana ayaga ayaan ku soo dhaweynaya inay sii gudgalaan insha Allah ta'ala wixii war ah aan soo noqon alxamdulillahi rabbil aalamiin wa bihi nasta'iinu ala umuri ad-din wad-dunya وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال سيدا ولكن محمود ودين شيء واي وحن ما أنت صوبوقني وحيدين جبريل اليوم oo xaaskiisa caday Muhammad aadan ka xanuunsan muddo 2 sano walaalyaal waxaan idinku baaqayaa oo aan idinku codsanayaa maamadan walaasheen ah aday Muhammad aadan waxay la ildaran tahay ay la jiiftaa cudur muddo 2 sano lugta ayaa dhaawac ka gaaray dhaawacii ayaa la tacaalayay sokorna jirkeeda ugu jirtaa kadib waxaa la helay oo laga sheegay cudurka kansarka oo ilmo galeenka ugu dhacay buro ayaa ku taal oo kansara ilmo galeenka ugu dhacday darajadeedana waa caali waa sareysa dalka gudihiisana wax looma qaban karo walaasheeni waxay ka dhalatay reer iska danyar ah awood uma laha inay daaweystaan sida daraadeed muslimiinta waxaan ugu baaqayaa inaad u gurmataan gabadhan dal iyo dibadba in loo gurmado waxaa la idinku bartay muslimiinta waxaan ku baranay gaar ahaan Soomaaliya waxaan ku baranay inay isla xanuunsadaan waxay ku sifooween xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yiri muslimiinta sifadooda muuminiinta sifadooda waxa way hal jir oo kale jirka hadii habeen uu xanuunsado jirkooda dhamaan wada xanuunsanaya walaasheeni marka waxaan idinku baaqayaa in aan u gurmano dal iyo dibadba sidaan idinku baranay idinkoo ku dhaqmaayo qowlkii Allah واتي أوليهاي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان مسلمين توحد بيعد يسوقر مش لا يسوقر مدان إنا يسو نحريين واتي عليه الصلاة والسلام أوليهاي يسو نحريستا روك يسو نحريستا الله سمدو إنكو نحريسنا يا سوك الحديث كان واتي أوليهاي من لا يرحم لا يرحم ننكي أن نحريسا لو ما نحريس ولا ليالو دل يوديبد وحن إنكو عسنينا أن يدو قد بنيا كودان أدي oo muddo 2 sano xanuunsan oo xanuunadeedana lugtaas bukan oo sokor ku dhacday iyo ilmo galeenko ugu soo baxay buro kansar ah daaweynteedana dibadda ay u baahan tahay waxayna ka dhalatay famiil danyar reer danyar aan waxba qabsan karin marka waxaan idinku codsanayaa aan soo gurmano cidii Ilaahay qalbigeeda ku sharaxdo inay wax soo gudbisana waxay gabadhan leedahay telefoonkeeda ugu soo rida nabarkan ugu soo rida awar lehal leh furaha leh waaye 38 96 nabarkaas ugu soo tuura ayada dirta ayaa haysatan markaas haloo gurmado insha Allah sida aan idinku baranay insha Allah haddana kulle walaalkii Cabdiraxmaan ayaan ku wareejinayaa fadlan Cabdiraxmaan sheegay walaalkeeni sheekheeni Sheekh Maxamed Yuusuf Maxamed Al-Khadiib iyo walaalkeeni Sheekh Maxamuud Sayid Caalim waxaan joognaa guriga ay degan tahay qofta jiran oo lagu magacaabo adeey Maxamed aadan oo la ildaran cudurka kansarka oo ugu dhacay ilmo galeenka iyo
dhaawac lugta ka gaaray oo sokorteeda kor u qaaday ayay la jiiftaa. waxaan maanta meeshaan ugu soo kulannay ilaahay dartiisa ayaan ugu soo kulannay. waxaan ku camal falaynaa watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaani, inaan isu kaashano khayrka iyo samafalka iyo alla kacabsiga, inaan isu kaashano sidii wax loogu tari lahaa. oo maadaama cudurkan hadda lasoo sheegay uu yahay cudur aad iyo aad u adag uu yahay, daawadiisana ay adag tahay, oo hal qof kaligiisa iyo hal qabiil kaligiisa uusan ka bixi karin, in la isu kaashado oo intii muslimiina oo ilaahay hanti u dhiibay loo baahan yahay inay ku deeqaan wixii ilaahay ugu deeqay, inay qoftan ugu deeqaan. maadaama rasuulkana uu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayhi: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد. وإن دمان وإن وذا دريونه سيدا أيضا جرد أدرينتي إن لا دريونه سيدا قفك مركو وحنوصده حال هبين أو جيركي سكمدا أي حنوصته وبناها جيرك كلا أردن أي لا حنوصدان أو هبينكي بالسهر والحمى سوجد إيو قند إيو أي لا دريمان مركا ولا ليال دتك مسلمين تأه. waxaan ugu baaqaynaa in wax loo taro qoftan inta nala jiifta ee xanuunsan ee aan nala hadli karin ee dhibaataysan ee cudurkan ee qofkii wax siinayana uu ku soo hagaajiyo lambarkeedana waa fura leh waaye awar leh hal leh 38 96 oo furo waa mobilkeeda lafteeda ayada ay wadato waxa loogu taro. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله كلي waxaan jeclahay inaad dhageysaneysaan Sheekh Maxamed Yuusuf Boqoljirow iyo Sheekh Cabdiraxmaan Buube. kolley warkooda waad maqasheen. waxaan kaloo sidoo kale aad u jeclahay inaan halkan baaq ugu diro dhammaan dhaqaatiirta kala duwan ee Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha iyo dibaddaba, gaar ahaan isbitaalada dalka ku yaal kuwada ugu waaweyn sida isbitaalka Dr. Sumayd, sidoo kale Erdogan X Digfer iyo isbitaalka Banaadir iyo inta soo raacdo Shifa iyo Kalkaal iyo walaalayaal dadka madaxda ka isbitaaladaasi waxaan leeyahay si gaar ah والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. واحد كقبان كتان إنك كقبتان جذاها الدلك ما دام عذر كان السنفتي سؤبة هي لتعالد إذنكو كل أكسون العذر كان كسر كأنه وعذر هنتي داوينتي سو إسكا أدك تهاي دلك ملك اللي جوجنا محلي الإمكانيات كله هلي كرو إسكير تهاي دتكو أيجو إسكا دنير سومالي أيضا دنير تهاي مركا إن شاء الله تعالى إن محلي هذا أتكسو في لسان إن نحريس بدن أتكسو في لسان بوكان كاس أو قبداس ولا شيء عدي محمد آدم وحن جعلان لها بل إن أتباقس سجوني أتبقي ستان يعني كربدنا كفيدان يا كربدنا كفيدان. وحنس حسوسين حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني من نفس كربة يعني عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم الآخرة. يعني قف مسلم كفيد كربة الدنيا إلهي نوح كفيد يعني كربة كم ده كربوي كما أنت قيامة reer kan murugada kolley maanta inaan la qaybsano aabahaas isaga naftiisa aan shaqaysan karin oo guriga loo joogo laga xanuunsan yahay waxna u qaban karin. marka aad iyo aad inaan halkaas aan u fiirsano aad iyo aad ay u mahadsantihiin insha Allah taala. hawshan sida runta waa hawl u baahan in dawlad ay gacanta ku qabato oo wasaaradda caafimaadka ay gacanta ku qabato oo meel wax gaar ah loo sameeyo. dawladihii waaweynaa ayaa maxaa la daala dhacayo. marka annagana insha Allah waxaan qaban karnaa u qabano baaqaasina qof walba aan gaarsiino qofka uu soo gaaray uusan ku ekaanin dadka kale walaalahana ha u sii gudbiyo oo muslim iyo maxaa la yiraahdaa ay intooda kale aad iyo aad ay u mahadsantihiin insha Allah taala. wixii ku saabsan warbixino ama taqaariir tibbi ah يعني إن شاء الله تعالى وحن جعلناها قولنا محل هذا نو قابل سن أو تكنيكيشن كيدو بتانك إن شاء الله تعالى نسوق من دونان سيدوك لو حقوم هذا علمنا ولا كان إبراهيم دونس السجنة الشروط الآن نقول يمد oo isagana ka qayb qaatay barnaamijka inuu soo gudbiyo isagoo maanta ka yimid aad u fog rabana maxalida hadaarinta inuu wax ka qabto isagana waxaan leenahay jazakallahu khayr ilaahay miisaanka aakhiratu uu kabo waana maasantihiin jawaab ayaan idinka sugeynaa insha Allah taala. nambarkeedana walaasheeda waa idin soo gudbiyay magaceeda ayaa ugu qoran khayr Allah idin siiyo shaashadana insha Allah waa lagu soo muujin doonaa. hada billahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.